fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee saaka ayaan furmin waxaana xarunta golaha wakiilada ee Soomaaliland ka soconaya sharci kala duwan oo ay leeyihiin inta badan xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaana warar hoose aan helinay tibaaxayaan in xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland siyaabo gooni ugu hawlan yihiin wax ka bedel ama mooshin ay ka keeneen xiroosadka golaha wakiilada ka oo nuxurka ama ujeedada ka dambeysana ay tahay sidii wax ka bedel lagu sameyn lahaa tirada xilka laga qaadi karo shirguddoonka golaha wakiilada walow aan wararkaasi ahayn kuwa si rasmi ah loo xaqiijiyay hay'adda waxa tibaaxayaan in ay xildhibaanadu xusul duwan yihiin sidii wax ka bedel lagu sameyn lahaa xiroosadka golaha wakiilada dhinaca kalena gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa tan iyo maalintii shalay wararka soo baxaya waxay tibaaxayaan inuu diyaariyay warqadiisa casilaadiisa aase yeeshee uu dhagtaagayo go'aanka golaha wakiilada ay ka qaadan doonaan dacwadii ay ka gudbisay xaraalinta Soomaaliland iyo sidoo kale warqadii muddada 7 maalmood ahayd loogu qabtay ee u diray gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland wixii warar ay ka soo kordhay arrintan kala socod Gobonimo TV Cabdirasaaq Axmed Cabdikarim Tiwar Soomaaliland Gobonimo TV Hargeysa